dowladda dalka Iiraan ayaa ku hanjabtay in ay wax walba ay uga jawaabi doonto haddii ay Israel ay sii wado hanjabaada ka dhanka ah dowladda waddankaasi. safiirka Iiraan ee qaramada midoobay Majid Taqat Rawanji ayaa isagu waxa uu sheegay in dalkiisa uusan ka labalabayn doonin in uu difaac nafsiyad ah uu ka galo haddii ay weerar amaba sidoo kale hanjabaad dhinaca amniga ay kala kulmaan Israel. saacada un kadib markii abaanduulaha ciidamada Israel Efe Kovavi uu isagu shaacu ka qaaday in Tel Aviv iyadu ay ka shaqeynayso qorshayaal la doonayo in looga hortago iskudayada dowladda waddankaasi Iiraan ay hubka nuclear-ka ay ku horumarinayso. safiirka waddanka Iiraan ayaa hadalkiisa waxa uu inta uu ku daray Israel in ay wado waxyaabo u muuqanaya in ay doonayso weerar ka dhana dowladda waddankaasi Iiraan, gaar ahaan xarumaha barnaamijka nuclear-ka dalkaasi. arrintaasi oo handadaysa ayuu yidhi xasiloonida dhinaca gobolka. waxauu sidoo kale uu sheegay in Tel Aviv ay doonayso in ay sii joogtayso hanjabaadaheedii ka dhanka ah xarumaha hubka nuclear-ka ee waddankaasi Iiraan. waxay dhibaato ay ku noqon doontaa haddii ay sii socoto ayuu yidhi hadallada Israel ay jeedinayso xasiloonida dhinaca gobolka bariga dhexe. Israel waxa ay shaaci ka qaaday in ay doonayso in ay burburiso heshiiska nuclear-ka ee lala gaaray xukuumadda Tehraan. beesha caalamka ayaa waxa ay digniin ay ka soo saaraysaa dalabaadka ku saabsan amaba hanjabaadaha labada dhinac ay isku jeedinayaan kaa oo aanan mas-uuliyad ku dheerayn ayay yidhaahdeen. abaanduulaha ciidamada Israel ayaa waqti hore waxa uu shaacu ka qaaday in Israel ay diyaarinayso qorshe weerar military oo suurtagal ah in Iiraan ay ka qaadaan si loo baajiyo ayaa la yidhi iskudayada ay dowladda Iiraan ay ku doonayso inay ku hesho bamka nuclear-ka. waxa uu khudbad naadir ah uu jeediyey uu ku sheegay Koqafi in uu ka dalbanayo ciidamada militariga Israel in ay diyaariyaan qorshayaal cusub oo looga hortegayo hanjabaada uga imaanaysa dalkaasi Iiraan oo iyadu go-aansatay in ay bamka nuclear-ka ay hesho. waxaan bartilmaameysan doonaa ayuu yidhi siyaasadda iyo sidoo kale danaha Tehraan ee dhinaca gobolka bariga dhexe. shir jaraa'ida uu ku qabtay macadka baaritaanada heerka difaaca ee jaamacadda Tel Aviv, abaanduulaha ciidamada Israel waxa uu shaaca ka qaaday in Iiraan ay haysato wax ku filan maadada uranium-ka ee lagu bacriminayo ka oo loo diyaarinayo amaba uga gol xaaraya in Iiraan ay hesho in ay sii joogtayso howlaha ay ku helayso bamka nuclear-ka. sidoo kale waxa uu sheegay in ay diidan yihiin in Iiraan ay dib ay ugu laabato heshiiska nuclear-ka oo ay horay ay ula gashay beesha caalamka. waxaa sidoo kale uu dalbaday in la sii saaro dowladda dalkaasi Iiraan cunaqabateynta ka dhanka ah. waxa uu hadalkiisa isagoo sii wato ku daray waa in la kordhiya ayuu yidhi cadaadiska la saaraya dowladda waddankaasi Iiraan, waayo hadda waxaa suurtagal ah ayuu yidhi in ay hesho bamka nuclear-ka. ciidamada Israel ayaa waxa uu sheegay in ay weerar ay ku qaadi doonaan 500 oo xarun oo bariga dhexe ku yaal amaba ay beegsadeen 500 oo xarun 2020 waxaana uu sheegay in howlgalladaasi laga fuliyo waddanka Suuriya halkaasi oo ay ku sugnaayeen saraakiil dalka Iiraan. tan iyo markii uu dagaalka uu ka dilaacay dalkaasi Suuriya 2011 ciidamada Israel ayaa boqolaal duqeyna waxa ay ka fuliyeen waddankaasi Suuriya iyagoo gantaalo la bartilmaameysaday ciidamada nidaamka Suuriya iyo xulafada Iiraan iyo Xisbullah ee waddanka Lebanon. xukuumadda Tehraan waxa ay ku hanjabaysaa in ay baalmari doonto wax waliba oo quseeya shuruucda caalamka haddii ay hesho digniino ku saabsan Israel in ay qorsheyso weerar ka dhan ah dowladda waddankaasi Iiraan. dowladdu waxa ay shaaci ka qaaday in ay sii wadi doonto barnaamijkeedii hubka nuclear-ka. afhayeen u hadlay xukuumadda waddankaasi Iiraan Cali Rabiici ayaa waxa uu sheegay in fursadda Mareykanka ee dib ugu laabashada heshiiska nuclear-ka iyo sidoo kale fulintiisuba ay tahay mid furan. wadahadal ayaan la furi doonaa dowladda waddankaasi Mareykanka taa oo aan laga hadli karin ayuu yidhi. ma jirto ayuu yidhi hadda wax xiriira oo aan la sameynay maamulka cusub ee Biden. waxauu sidoo kale uu sheegay in malafka ku saabsan wadaxaajoodka uu yahay mid taagan, waana in la fuliyo ayuu yidhi qaraarada qodobka 2231 ee golaha ammaanka uu ku ansixiyey heshiiska nuclear-ka ee Iiraan. Tehraan waxa ay sugi doontaa ayaa la yidhi shaacinta mowqifka xukuumadda Washington ee cusub, suurtagalnimada in dib loogu laabto heshiiska nuclear-ka cunaqabateyntana waddankaasi laga qaado. rajo weyn ayaan ka qabnaa ayuu yidhi in xukuumadda Washington
iyadu ay sameyn doonto wax waliba oo kalsoonida lagu soo celin doono. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isagu horey uga baxay heshiiskaasi nukliyeerka, waxaana uu sheegay in uu ku cadaadin doono uuna saari doono cunaqabateyn adag dowladda waddankaasi Iiraan haddii ay ka baaqsan weyso ayaa la yidhi barnaamijkeedii nukliyeerka. saraakiisha Israel ayaa waxa ay ka baqayaan in madaxweyne Joe Biden oo hadda aqalka cad la wareegay in siyaasadiisu ay ka duwanaato midda Trump, taa oo la sheegay in ay noqon doonto isku day uu ku doonayo in uu ku badbaadiyo heshiiska nukliyeerka dalkaasi Iiraan. dhinaca kale, abaanduulaha ciidamada Israel waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa muqaawamada islaamiga ee Xamaas iyo Xisbullah ee waddanka Lebnaan ay iyagu ay dhisayaan ciidamo la sheegay in ay doonayaan in ay taageeraan dowladda waddankaasi Iiraan. waxa uu ku jabay in ay sii wadi doonaan gantaalada ay la dhacayaan xarumaha kaydinta hubka ee magaalada Gaza. sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada Israel ay si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada Xamaas iyo kooxda Xisbullah ee dalkaasi Lebnaan. waxa uu sidoo kale hadalkiisa inta uu ku daray in aysan wax horumar ah ka sameyn qadiyadda dadka labada dhinac u xiran ee Israel iyo sidoo kale Xamaas. taliyaha militariga Israel waxa uu sidoo kale uu leeyahay howlgal commandos-ku ay fuliyeen ayaa waxa uu yahay mid looga baaqsan doono hanjabaad weliba oo uga timaada kooxaha hubeysan ee iyagu isku dayaya in ay taageero ay siiyaan dowladda waddankaasi Iiraan.